puntland guusha ay soo bandhigtay in badan oo soomaalida ka mida ma aysan filaynin guulaha intaa la eg bay maamul goboleed keligood ay soo bandhigayaan waana maamul goboleedkii ugu horreeyey oo maalmo kooban gabal madow u rida kooxaha khawaarijta oo dhul masaafo dhan 70-80 kilomitir maalmo kooban kaga qabsada 8 saldhig bay soo bandhigeen ciidanka puntland guushan ay maanta puntland gaadhayna dowladda federaalka xataa ma aysan filayn bal ka waran hadday dowladda federaalka doorkeeda ay qaadan lahayd ilaa meesha hadda waxaa maqan doorkii dowladda federaalka ay ku lahaan lahayd dagaalkaasi baa maqan oo iyadig baa weliba hagardaameynaysa oo curyaaminaysa dagaalka khawaariji way u dhammaatay puntlandna way uga dhammaatay 80 kilomitir bayna maalmo kooban gebi ahaanba lagu soo gabagabeeyey 3 deegaan oo keliya ayay ku harsan yihiin oo deegaanada puntland war soo dhawaada wadayaal waxaan rabaa inaan dul istaago howlgalkii puntland ay ka waday buuraleyda calmiskaad iyo calmadow aagga isku shuban deegaanada ay kooxaha khawaarijta daacish ay ummadda soomaaliyeed kaga dhibaateynayeen ay kasoo duulayeen bal inteena dul istaagin guulaha iyo sidoo kaleeto halka lagu kala sugan yahay bal wax yar horta muuqaalkan aynu ku nasanno oo aynu daawano anigana muuqaalkana sii faafi oo intaad dhegaysanaysa haaba joojininba farxad awgeed sababtoo ah guusha maanta puntland ay soo bandhigtay wax la arkay oo la maqlay ma aha wax la arkay wax hataa la filahayay ma aha maamul goboleed guul intaa leeg inuu keenayo xataa in badan oo soomaalida ka mid ah ma aysan ogeyn bal horta muuqaalka fogeeya meel dheer ka tuura horta meel dheer ka tuura الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم maanta wuxuu ku saabsan yahay war-saxaafadeedkaygu inaan ka warbixinno halgankii dheeraa ee hilaac lagu dabartirayay ururka alqaacidada ee daacish oo ka socday buuraha calmiskaad waxaan ku sugannahay aroorka daylaanka saaad ogtihiin waxaan rabnaa bulshadeeda inaan la wadaagno guulaha aan ka gaaray halgankii aan ku jiray ciidanku waxay ka soo bilaabeen halganka markii laga reebo dharjaale arrintii ka dhacday oo isku dayga ahayd oo ay khasaaraha weyn kala tageen waxay ka soo bilaabeen xamure iyo meeshan aan joognaa waxay isu jiraan masaafo taqriiban 70-80 kilomitir ah waxaan ka soo safaynay intaas cadowgii daacishka ahaa oo ku jiray waxaan ka soo qabsannay saldhigyo aad u waaweyn oo deegaanadoodii ahaa ma aha niman ku dhiirada inay qof hor yimaadaan oo la dagaalamaan waa niman u tababaran oo ku dhiirada inay qof gaadaan iyo dhagar ay dhigaan waxaan ku fahnay dhagarta ay dhigayeen waxay isku dayeen isku dayo badan oo mid kasta ay ka qaadeen guuldarro waxaan ugu bashaareynaa bulshadayada quruxda badan ee reer puntland oo haween iyo gabdho iyo wiilal iyo dhallinyaro iyo magaalooyinba na garab taagan inaan ka gaarayno guul weyn inaan ka gaaray guul weyn halgankii dabatirka daacish ee hilaac waxaan ku sugannahay aweytidu dee ninkii yaqaan baa yaqaana waa aroorada meeshii ugu dambaysay insha allah waxaa noo haray intii buurta ahayd wax yar oo aan malaynayno inay ku jiraan miiraale meesha la dhaho dhasayn meelaha noocaasa baa uun jeceel meelo yar oo farkutirisa baa noo harsan intii ay deganayd insha allah ururka argixisada ahayd daacish intaana waxaan ku rajo weynaa inaan 2 beri 3 beri oo soo socda insha allah aan gacan ku qaban doonno waxaad ku bishaaraysataan oo ku saaxataan inaana dirteen aan idin maqannahay soo dabartiri doonno ururka argagixisada khawaarijta ku dhuumaalaysanaysa buuraha calmiskaad iyo calmadow waayahay daawadayaal sida aad u jeedaan muuqaalkaasi waxa la qarxinayo waa miinooyinkii kooxda khawaarijta ay ka carareen weeye saldhigyadii laga qabsaday miinooyinkii ay ku wareejiyeen kuwii ay lahaayeen ciidamada ku dhibaateeya ayaa ciidanku dee khibrad bay u leeyihiin waxaane mina baadhistii iyo adduunkii o dhan baa la socdee baa intii la soo saaraa la qarxinaya 1 2 3 4 waad u jeedaan gey horta daacish gabal madow baa u dhacay puntlandna ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidankii daraawiishta mujaahidiinta ee puntland guul unbaa ilaahay un dushooda iyo gacantoodaba u dhiibay iyagoo weliba khasaaraha gaadhay uu yaryahay oo waxa weeye sa u caydhsanayaan kooxdiina way u sii cararayaan 8 saldhig bay maanta iyo shalayto ciidanka daraawiishta puntland ay gacanta kaga dhigeen kooxda
sida aad maqlayseen codka taliyayaasha mid ka mid a wuxuu yidhi 70 kilomitir 80 kilomitir ayaan maalmahan gudahooda goynay buy oon kooxdii kasoo shaminay oo aan kasoo qabsanay waxaa noo dhibanna waa 3 deegaan buu yidhi meelihii ugu dambeeyey baan hadda maraynaa buu yidhi waa howlgal ballaadhan oo sahamin iyo iskugu jira waxa weye khibradaysan oo laga taxadiray weeye horta puntland howlgalkaasi ay wado guulsheedana guul la tilmaami karaba maaha buurihii calmiskaab iyo sidoo kaleeto calmadow iyo ilaa iyo isku shuban togogii dheerdheeraa ee waxa weeye ay kooxdan ku dhimaalaysanayeen kulli waa laga soo hurgufay waa laga soo shamiyey buurtay hadda ku harsan yihiin keliya oo hadda dhiman ilaa 3 deegaan baa noo dhiman buu yidhi taliyaha sida uu sheegay dhulkaasi waxa weeye kolley dadka yaqaanaa garanaye horta dhibaatadaas baa horta heshay nimankii la yidhaahdo ikeen nimankii la dhahayay daacish horta dhibaatadaasaa heshay meesha keliya u banaana horeyna waan idinla wadaagay somaliland bay aakhirka dambe geli doonaan inta ugu dambaysa markii mid la dilo iyo mid la qabto iyo mid carara ay noqdaan inta cararto somaliland bay geli doonaan ilaan kooxdan daacish iyo nimankaas shabaab iskuma fiicna isma arki karaan dagaallo xun baa dhex maray xaggaas bay marka u carari doonaan waxaan hadda xigta helaynaa inayba already ay maamulka la hadleen ay dhaheen waddadan soo mari lahayn noo baneeya oo waxa weeye nimankaas somaliland iyaga ay wada hadleen waana waddada keliya u bannaan oo xeebta intay qaadaan oo halkaa ka baxaan ayay berberiya hargeysa geli doonaan halkaas bayna aakhirka ugu dambeeya intooda ugu dambaysa ay iska dhiibi doonaan taasi waa midaasoo horta meelay iska dhiibaanba deegaanada puntland waa uga dhammaatay jab iyo halaag baana ku dhacay halaag macal ceelashii baa laga soo qabsaday biyahay ka cabayeen meelay biyo ka dhadhamiyaan baaban heli dooninba dhibaatada haysataay taa horta waa puntland iyo hadafkii iyo qorshihii duulaanka loogu qaaday kooxdaasi ee lagu ciribtiraya deegaanada puntland lagaga ciribtirayey guul iyo habsamile ayuu u socdaa shacabkana waxaan leeyahay cid walba oo uusan muuqaaladii hore aysan gaadhin hambalyo muuqaalka sheergareeya fogeeya wiilashaas ha loo soo duceeyo halgamaayada ee naftooda iyo waktigooda iyo dhiigoodaba u huray difaacidda puntland iyo ciribtirka kooxaan khawaarijta naflacaariga ee duulaanka kusoo qaaday dhulkeenna hooyo dhulkeenna soomaaliyeed ee puntland duulaanka kusoo qaaday ha loo soo duceeyo ha la garb istaaga insha allahu tacala dhinaca kale dagaalkan puntland hadda waa ku keli dowladdii federaalkahayd lama socoto bal ee iyadiibaa hagardaamaynaysa oo curyaaminaysa oo caddayma loo hayaa oo madaxda puntland ay sheegeen oo ay ku soo celcelinayaan oo wasiirkii warfaafinta ee puntland maanta ugu dambeysay uu warbaahinta u xaqiijiyo uu yidhi dowladdii baana curyaaminaysa waa ayaan daro intaada leg dowladdii federaalka ee mas-uulka iyada ka ahayd ee la rabay inay dagaalka qaybteeda ka qaadato oy technically iyo sidoo kaleeto ciidan ahaanba infantryba ay u caawiso oy puntland u garab istaagto wixii siyaasadoo laysku hayo waa laysku soo noqoniye iyadiibaa curyaaminaysa iyadiibaa ka xun guulaha puntland ay gaadhayso iyadiibaa waxa u aragtaba ceeb weyn iyadoo haysata 20 kun oo ciidana galguduud iyo la taagan yahay shabeellada dhexe galguduud iyo shabeellada dhexe muddo 3 sano ah shabeellada dhexe iyo galguduud ayaa la taagan yahay oo ciidankii ila meeraysa iyina sii soco ciidanka laga dhigay markay meel qabtaanba teleefon baa loo diray waxaa lihi ka soo baxa markay kooxdii soo gashana waxaa la dhihi gela ceebtaas iyadoo haysatay waxa weeye ka baqaysaa way masayrtay wax kaloo dhoo garan maaye way masayrtay puntland bay ka masayrsan tahay waa ayaan daro inteeda leeg waa musiibo waxaan filayna ma aha wax suurtagala ma aha run ahaantii waa ayaan daro inteeda leeg wey in dowladdii federaalka ahayd iyaduba waxa weeye ay wixii hagardaamaynayso oo wixii waxa weye lugaha ku dhegto oo iyadoo ay waxa weye angalo kale ka soo gasho oo puntland ay tusiso caalamkii xataa ay tusiso inay puntland khaldan tahay oo dagaalka ay qaaday uu khalad yahay waa ayaan daro inteeda leeg reer puntland iyo ummadda soomaaliyeed ee cadowgaasi necab waxaan leehay puntland hala garab istaago qurba joogta puntland waxaan leehay dagaalka xukuumaddu ay gashay ha lagu garab istaago financially ha lagu garab istaago sababtoo ah dowladdu waxay u baahan tahay dhaqaalo fara badan oo ka dhaawacma ka xanuunsada shidaalkii le saadkii le waxa weeye nafaqayntii le wax walba risaastii le wax walba le dowladda waa in lagu garab istaago qurba joogta puntland ka soo jeeda waxaan leeyahay dhaqaalaha hura intaa yaree dhiman
ee kooxdaasi ay ku jirto si loo saaro dhaqaalaha hura dowladda ha la garab istaagaan leeyahay baaqaasaan u daraya dowladda federaalkana waxaan leeyahay shame on you ceeb bay idinku tahay inaad waxa weeye aad dagaal argagaxiso maamul goboleed uu ku jiro aad ahgardaamaysaan ood curyaamisaan ceeb bay idinku tahay oo weliba gaar ahaan xamse waxaan leeyahay ninka wadaadka aqwaan muslimiinka xisho qaybtaada ka qaado xisho taariikh xun ha ka tegin markii hore marxuum iyo xoogaa jilicsani lagugu eedeynaye haddana ha ka aamusina dagaalka taageer oo dhaqaalaha puntland ay leedahay siiya oo weliba wax ugu dara oo bogaadiya oo maalin walba miidiyaha intaad soo istaagtaan u mahad celiya puntland oo qaybtiina ka qaata taasaan dowladda federaalkana leh